aqoon dhigayo macalin intii u mudnayd adaa maraye adaa aflaxo aqoon dhigayo intii u mudnayd adaa maraye. بسم الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولا إذا لهانتي بوحين كسلام يا صلاة السلام قطع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد تحية الإسلام إلهي بمهاد سكال سووكا كاني قوبتان قروح بدن haddii aan xoogaa inii iftiimiyo waxa moodaa dadka qaarkood in xoogaa sabres laga dhigay in meeshan la yimaado haddii xoogaa inii iftiimiyo waa xalfad yar oo ugu talagalnay maamulaha dugsiga ama madrasada halkan waxa fadhiya macallimiinta halkan fadhida waxay ahaayeen ardaydii hadda maanta caawa dhihi maayo macallimiintii laakiin waxa dhahaya ardaydii hore uga dhamaysay quraanka ama lagu soo tarbiyay madrasadan aan caawa fadhino haddana ka wada noqday macallimiin sida awgeed baan caawa halkan waxaan ugu qabsanaynaa xalfadan yarta ah in aan ku guddoonsino maamulaha shahaado sida awgeed annagoo isku duuban waxaan hadda inoo furaya xalfadan sidoo kale waxaan rabaa in aan kelmado yaryar siiyo macallimiinta iyagoo soo koobkoobiya anoo ku bilaabaya macallin Axmed Cumar waxaan leeyahay falyatafadal. الرحيم أولاً إلهي بما أسكال سبحانه وتعالى قوبتان سكوكان كاني وحانو مهدعيني يا لما معلمين تدائرتا حلفدان فردية يا مامولها قالية ومرنا أنا سوكو بكرنا هدي أن دمعنا إن أمهدعيني أنا مرنا أمهدعيني كرن هدان وحول بصمين حتى هدي أنا حج جينو إن أمالين ما إن أبالكيسم أنا جودي كرن سيدو كلا وحن سلام يا بهذا الصحافة وحن لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام waxaan rabaa inaan maanta caawa halkan ka ammaan yara ustaadka qaaliga ah waxaan u malaynayaa haddaan si kasta u ammaano ma soo goobi karna ammaantiisa ustaadku wuxuu nagu soo tarbiyay tarbiyada ugu qurux badan sidoo kale wuxuuna soo baray wax walba oo looga baahnaa diinta islaamka ku dhaqankeeda waxaan rajaynayaa maanta inta aanu naqaano adduunka aan dadka kula dhaqanno inay tahay intuna soo baray waxa kale oo banaanka nooga yimi ay yihiin wax yar ilaahay baa mahad iska leh marka waxaan rajaynayaa ardayda dambe oo inaga naga dambeyn doontana in ustaadku uu sida anaga noo soo tarbiyay iyo si ka qurux badan loo tarbiyeeyo barbaarinta waxa ugu fiican barbaarinta la isku barbaariyo aayaadka quraanka kariimka iyo ahkaamtooda iyo sharciga sida loogu quraanka loogu dhaqmiyo sida loo akhriyo kaliya haduu qofku ku baro ma soo koobi karta abaalkiis waxaan leenahay ustaad 100% waxaan ku leenahay sida noogu soo hagar baxday waan kaaga mahad celinayna marna ma ahaan doonto intaan kaliya inaanu maartay ku soo koobi doono ustaadi waxaan ku markii hore waxaan ahay arday haddana waxaan ahay macallimiin daayar oo ka shaqeysay ka hawlgasha dugsiga qayb ka mid ah waxaan ogaataa mar walba waxaan nahay waxa tahay aabahayaga haddaan leenahay aabana dhalay waxa jira aaba na soo koriyay maskaxdeeda soo koriyay waxa tahay aabahayaga maskaxda soo koriyay inta ka bacdi waxaan u mahad celinayaa macallinta daayarta waxaan leeyahay saa uga soo qayb gashan xalfadan aad iyo aad baa mahadsantiin kelmadahaas qiimka oo halkan ka yiraahday waxaan hore in kugu sheegay in ay yihiin macallimiinta halkan fadhiya arday soo ahaan jireen oo ardaydii dugsiga ka quraan ka dhamaysay 2011 ilaa 2015 intii u dhaxaysay maantana oo caawada ay ku beegan tahay bishu 20kii bishii 2020 oo habeenimo khamiis ah halkan ugu qabanaya maamulaha dugsiga xalfad waxaan rajaynaynaa anagu waxaan ahayn arday haddana waxaan nahay macallimiin ka shaqeysa dugsiga quraan ka soo dhameeyeen anaguna waxaan rajaynaynaa in aan inta naga dambayso soo gacan qabanno oo aan kor soo qaadno si iyaguna heerka maanta taaganahay ama caawa aan taaganahay ay u soo gaaraan oo soo garab qabanno haddana waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo macallin kale ustaadkeena qaaliga ah hadeerna ah maamulaha dugsiga Daarul Furqaan ustaad Cabdullaahi Cabdi Maxamed Cumar oo ustaadkii runtii inteena quraanka soo baray maanta inteena wada quraanka dhameysay oo wada macallimiinta ustaadka waxaan leenahay
halkan mahadada kuma soo koobi karno maxay taheen kun caaliman aw maxay taheen kaada almucallimu an yakuuna rasuula hadeer macallinkii ma aha waa maamulkeena macallinkeeni ma ahanba macallinkeena waaba dhaafay hadeer wuxuu gaaray heer maxay taheen maamulkeeniya wuxuuna ahaa macallinkeenii maxay taheen nagu soo tacabeelay oo maxay taheen qur-aankii iyo dhankii maadiga naga soo dhisay maantana waxay taaganahay heerkiisii oo maanta annaga macallimiin ah marna waxaan la ilaawi karin ma aha macallinku intayada kaliya in aan dugsiga qur-aan ka dhamaynay hadhuutiin aan ka howlgalnay waxaa jira macallimaan kale oo badan oo magaalada madaaris kale ka howlgasha iyagana aad iyo aad baan caawa ugu mahadcelinayaa sidoo kale waxaan leeyahay macallinkana ugu hambalyeynaya inuu hore usii socdo waxaan leeyahay macallin hore usii soco waxaan rabaa inaan kelmad u dambeysa siiyo cabdiqaadir daa'uud الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهدي واتبعوا ما رسمه له فدانا لهم المملوك وخضعا لهيبتهم الأمم أما بعد horta dhammaan waxaan salaamayaa macallimiinta iyo maamulka sharafta qiimaha qaayay qadarinta mudan ee caawa horteeda fadhiya iyo baha saxaafada salaan kadib horta marka koowaad ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala isoo ka keenay fadhigan quruxda badan markaa kasoo tago caawa xaggan waxay noo jirta xaflad yar xafladaas oo aan ugu talagalnay macalinkeena nagu qaaliga ah ustaad cabdullaahi cabdi maxamuud sharaf iyo karaamo korkiisa ahaatee macallimiintaas iyo ardayda isugu jira qiimihii qaayaha qadarinta mudan waxaan leeyahay waxay soo bixiyeen dadaalkaasoo uu kusoo garab qabtay ustaad cabdullaahi dee heerkan hadeer taagannahayna hadduusan isaga nagu soo garab qabadeen ma aanan gaari lahayn ilaahay baa mahad iskale subxaanahu wa tacaala xadiis rasuulkeena xadiis baa wuxuu ahaa khayrukum man tacallama alqur'aana wa callamahu dadka waxaa ugu khayr badan man ruuxii tacallama barta alqur'aana qur'aanka wa callamahu dadka sii bara allaha ustaad cabdullaahi allaha ciiseeye karaamiish sharaf korkiisa ha ahaato ilaahay amarkii qur-aanka kariimka waa bartay annagana waana sii baray waa rajeynaynaa inaan annagana jiilka naga dambeeya gaarsiino ustaad cabdullaahi waa ustaad toosiya ardayda yaryar saxa caqiidadooda kobciya maskaxdooda intaba sidaan ogsoonahay si hagar la-aanah cilmi caafimaad ilaahay uu nagu manaystay cilmi isagaa nagu manaystay ilaahay subxaanahu wa tacaala ka sokow haddaan damco inaan ammaano ammaantiisa istaagan waqti xaadirkan meeshaan taagana kuma soo koobi karo laakiin waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ku manaysto jannadiisa dhammaan ummadda muslimiinta ahna waan rajaynayaa inuu ku manaysto macallin cabdullaahi waxaan aaminsanahay inuu yahay macallin dhammaan ardayda dugsiga daarulfurqaan inay u hayaan abaal aan inaba caadi ahayn aan xaggan kusoo koobi karin taasna waxaa sii dheer bulshada wuxuu kusoo biiriyey arday firfircoon maskaxdooda furan tahay aad qiimihii qaayo qadarin u mudan taasna ilaahay ayaa u mudnaatay anoona kusii dheeraanin kelmadeyda waxaan idin leeyahay dhammaantiin dadaala oo dadaala macallin cabdullaahi waa macallin ku dayasho mudan sharafi karaamo korkiisa ahaat kumana sii dheeraanay intaas ku soo aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir daa'uud yuusuf hadeerna waxaan rabaa inaan si wada jira u guddoonsiino shahaadada sharafta macallinka ugu talagalnay dhammaanteen waxaan rabaa inaan soo istaagno oo aan guddoonsiino maamulaha shahaada sharafta ugu talagalnay الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أولا إلهي سبحانه وتعالى ومهد بلارن إسكاله ونا مهد نقيا إلهي أبورتي مرك حكتنا وحن لي جزاك الله خيرا جزاء وبشركم الله للجنة وأحسن الله إليكم وشكر الله لاجتماعكم aad iyo aad bay u mahadsan yihiin
macallimiinta dhammaantood aad baan u salaamayaa. waxaan kaloo iyadana aad iyo aad ugu mahadcelinayaa bahda saxaafadda. aad iyo aad baan u mahadsantihiin. runtii caawa barnaamijkan maana ogeyn, aad iyo aad iyo aad iyo aad bay farxad gelisay. waana saa ii soo dhaweysayna waxaan rajaynayaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu jannada ilaahay idinku soo dhaweeyo, khayr iyo sawaab fara badanna ilaahay idinka siiyo. anna aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa dhammaan macallimiinta, iyagoo ah dhallinyaradii hore ee madrasada macnaha ka soo baxay oo qur-aanka kusoo dhameeyey, hadeerna macallimiin ah. ilaa iyo 2001 ilaa 2020 hadeer la marayo. intaas maray arday ahaayeen iyo maray macallimiin ahaayeen. runtiina iyaga la'aantooda san dugsigan jireen, waayo xagga fikradda iyo caqliga iyo horumarinta iyaga unbaa inta badan runtii wada. sidoo kale macallimiin kaliya hadeer kama ahe, waxay ka yihiin waxay ka mid yihiin maamulka oo arrimaha iyo dugsiga iyo howlahooda iyo si uu kala socdo. iyaga la'aantooda kaliya ma socdo. marka aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa. saa ii sharafteenna ilaahay subxaana wa tacaala idin sharfo, waana helaysaan ilaahay idinkiis niyeystana insha allahu tacaala. bulshada soomaaliyeed oo dhan iyo waalidiintii iyagana fikraddan runtii ahaantii fikraddan ka dambeeyey oo iyagana runtii yacni laga maarmaan ah inaan halka ka xuso waalidiintii dhalay oo runtii iyaguna runtii aad iyo aad u soo barbaariyey oo inay dugsigii maartay sii dhigtaan oo ay haddana macallimiin ka noqdaan. ilaahay falligiisa ka sokowna waalidiintooda ayaa aad iyo aad iyaguna runtii ku soo booriyey, dulqaadkiina way sameeyeen. marka insha allahu tacaala aad baan idinka mahadcelinayaa, anaan soo koobi karin runtii miiqaamka caawa ay runtii soo gaarsiiyeen. marka insha allahu tacaala aad baad u mahadsantihiin. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.